magacaygu waa Saara Maxamed Cabdulla Saara Caday waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaya aqoon-yahaniinta dhalinyarada macallimiinta degmada Buulaburte oo guulo badan ka soo hoysay gobolada Soomaaliya na noqotay gobolkii degmadii ugu fiicneeday oo dhanka aqoonta aad iyo aad ugu guuleysatay waxaan leeyahay Buulaburte hambalyo gobolada Soomaaliya gobolka ugu fiican waa gobolka Hiiraan ugu aqoonta badan waa degmada Buulaburte waxaan leeyahay sanadkiisa kale tan iyo tuqasii fiican iyo guulo badan ay ka rajaynayna dawladda Hiiraan liisto tartankii dheeraay oo degmada Buulaburte ay u soo gashay ramadaankii bilowgiisii ilaa aakhirkiisii xalay ahayd waxaan leeyahay Buulaburte meel kasta joogto hambalyo ayadoo ciidii ay soo gashay iyo tartankii oo la hantiyay guushiisii xalay dadka dhafray oo soo jeedayo min bilow ilaa dhamaad u taagnaayaan ku jiray natiijada aakhirkeeda markii dambana Ilaahay baa nawaafajiyay subhanahu wa ta'ala waa u hambalyeynaya reer Buulaburte meel kasta joogaan hasii laba jibaaraan aan leeyahay dadaalkooda tartankan ku guuleysanay boqolkiiba boqol aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maadaama reer Buulaburte nahay guusheenu soo heysay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dadweynaha markay magacayga maqlaan ayaga way garanaa meesha joogo dadka xalay tartanka ugu guuleysteen dadka way garanaan reer Buulaburte dadka aad u yaqaanaan marka hadda barashadooda hadda la isma weydiinayo laakiinse hambalyo waxaan u hambalyeynaa tartankii xalay lagu guuleystay oo xalay Ilaahayna waafajiyay inaan guuleysano aad iyo aad ugu hambalyeynaa ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan maadaama iidina ugu soo fool leedahay insha Allah hambalyo muslimiinta meel walba ay joogaan oo hambalyeynaa hambalyo dhammaan reer Buulaburte meesha Allah meeshay joogaan waxaan ugu hambalyeynaa tartan aqooneedkii bishii barakeysnay ay ku soo guuleeyeen degmada Buulaburte u soo hoyatay marka waxaan u hambalyeynaa dhammaan reer Buulaburte iyo gaar ahaan reer Hiiraan oo dhan marka insha Allah waxaan rajaynaynaa sanooyinkan soo socda inay haddana ay sii laba jibaaraan haddii la yiraahdo dhammaan waxaan u hambalyeynaa dadkii oo da'da yaraa juhdiga geliyay maalmaha iyo fikirka badan oo aqooneedka ay geliyeen reer Buulaburte aad aan ugu hambalyeynaa mar labaad hambalyo soo dhawaada oo tartanka dhammaan dadweynaha gaar ahaan reer Hiiraan inaan sii badano tartanka kuligan waan ku guuleysan jirnaa hadday fan tahay hadday orod tahay hadday bayloodnimo tahay marka welcome ala soo dhawaada waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay tartankii xalay dood cilmiyeedka ahaa ee ka dhacay reer Buulaburte iyo reer Marko oo ay guush ay ku qaadeen reer Buulaburte aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa anigoo og inaan nahay magaalo aqoon-yahano badan ay ka soo baxeen magaalo xadaarad leh runtii aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa waana mahadsantihiin halkan waxaan hambalyo uga dirayaa dhammaan bulshada reer Hiiraan qaasatan bulshada Buulaburte degmada Buulaburte gobolka Hiiraan oo noo soo hoyday tartan aqooneedkii u dhaxeeyay degmooyinka Soomaaliya kaasi oo aan xalay koobka aan ka qaadnay degmada marka ee gobolka Shabeellada Dhexe hambalyo ayaan leeyahay hambalyo waxaan farxadaas aan la wadaagaynaa dhammaan reer Hiiraan aad iyo aad ugu hambalyeynaa degmada Buulaburte oo ka guuleystay degmada marka hambalyo Buulaburte guulada badan oo rajeynaa insha Allah dhammaan reer Buulaburte waxaan hambaleynayaa Cabdullaahi Shariimaan waxaan leeyahay hambalyo sanadkan dambe waxaan niga rabaa sida hadda oo ugu guuleysateen waxaan niga sugayaa sanadka soo socdo sidaan oo kaleenta ina kaalmaha koobaad soo gashin halkaan waxa ugu hambalyeynaa degmada Buulaburte oo ku guuleystay tartan aqooneedkii bishii Ramadaan ay socday maasha Allah ayaan leeyahay wax hore u socayaan leeyahay degmada Buulaburte waa guuleysatay mar walbana sidaas oo kale inay u guuleystaa jecelna waxaan hambalyeynaa tartan aqooneedkii macnaha ay ku guuleysatay degmada Buulaburte ay ugu guuleysatay Marko aad baan ugu hambalyeynaa soo dhawaada waxaan u baahanahay markasta macnaha in la dhiirigeliyo aqoonta in la dhiirigeliyo insha Allah dadka macnaha dalka dibadaha jiro dadka dalka joogo kulli dhamaan waxaan u baahanahay inay kor u qaadaan aqoonta annagana macnaha waan taageereynaa insha Allah haduu la yiraahdo haddana hambalyo aad baan ugu hambalyeynayaa Buulaburte hambalyo waxa halkan waa baleenaa degmada Buulaburte oo bisha barkaas Ramadaan ka tartanka xal soo gabeysay dhigeeda Marko hambalyo ayaa leeyahay degmada Buulaburte iyo tartan aqooneedkii sida fiican la isku weydaarsaday waxay ayidayaan annaguna aan la ayidayna hoon adeeryaal ugu nahay guushii u soo hoyatay degmada Buulaburte
raggii sida wanaagsan uga qayb qaatana waxaan leenahay ilmaheenna aadaad u mahadsantihiin baan leenahay si fiicanaan u soo dhowaynaynaa cid kastee tartan kala dhexeeyo tartan aqooneedkaas oo kala dhexeeyane waxaan leenahay ayagane sidaasoo kale inay baaldahaba ka soo galaan ayaan rajaynaynaa kuwaanna waxaan leenahay war guulaysta arrinkuna sidaas ha ahaado soo dhowayntu waa nuucaas hambalyo halkan waxaan uga hambalyaynaa aqoon isweydaarsiga ka dhexeeyey 30 degmo ee Soomaaliya ay ku guulaysatay degmada Buulaburte guushaasu waxaan leeyahay mar labaad haddana waxaan u hambalyaynaa idaacadda qaranka oo si cadaalad ku jirto ee hufan u daadahaysay arrinkaas waxaan leeyahay mar saddexaad dhalinyarta guushaas soo hoysay adeeryaal aabayaal waa mahadsantihiin guushaas waa guul Soomaaliya u soo hoyatay guushad soo hoyseen ee degmada Buulaburte u soo hoyatay waxay u soo hoyatay Hirshabeelle waxay u soo hoyatay gobolka Hiiraan waxay u soo hoyatay Soomaaliya waxaan leeyahay halkiina ka sii wada aad iyo aad guul lagu farxo weeye aqoon isweydaarsiga aad iyo aad waa wax ummadda anfacayo waa wax isdhaxgalka bulshada ah waa wax aqoon kordhin ah waa wax lagu farxo marka waxaan leeyahay guushaas waa noo soo wada hoyatay adinkaas soo hooyay annaguna waa iga garab taagnayn habeen iyo maalin aad iyo aad u mahadsantihiin tartan aqooneedka guushad ka soo hoyseen mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan rajaynaynaa waqtiyada soo socda haddii ilaahayna gaarsiiyo inaad meel fiican iyo meesha joogtaan iyo kasii hore aad tagtaan kuwa ayaguna kaalimaha koowaad soo galay iyo kaalimaha sida markoo kale degmada marko ayagana waxaan leeyahay dadaal sii sameeya waad gaari doontaan haddii ilaahay yiraahdo adinkane guushiinu waa guusheenna